weligaa ma isweydiisay oo ma ka fikirtay talo waa kuma boqorka ay dadkiisu ugu jecel yihiin boqorada adduunka ninkan idin muuqda ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay boqorka ay dadkiisu ugu jecel yihiin dunideenna wadankee ayuu boqor u yahay waa su'aasha aad markaba isweydiisay balse intaanan ka jawaabin ogow in dalka uu boqorka u yahay uu u dhaxeeyo wadamada Shiinaha iyo Hindiya oo ah kuwa ugu dad tiro badan adduunka wadankaasi waxa lagu tilmaamaa in dadkiisu ay yihiin kuwa ugu farxadda badan adduunka maxaa yeelay dadkiisu waxa ay haystaan waxbarasho iyo caafimaad bilaash ah isla markaana ma jiro haba yaraatee qof bilaa guri ah oo dalkaasi ku nool sidoo kale wadankani waxa lagu tilmaamaa inuu yahay dalalka dambiyada ugu yar ay ka dhacaan guud ahaan adduunka oo dhan wadankani waxa la yiraahdaa Bhutan waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay wadan dadkiisu ay aad uga talaalan yihiin xanuunka coronavirus Chigme Sinyan Wanchak waa boqorkii afaraad ee soo maray Bhutan kaasi oo bedelay dastuurkii wadankaasi si uu awoodo dheeraad ah u siiyo shacabkiisa waxaase la yaab lahayd in dadka dalkaasi aanay doonayn in boqorku uu dhimo awoodiisa taasi oo boqorka laftiisa ku qaadatay inuu abaabulo shirar waaweyn oo uu awoodda isaga dhimayo iyadoo taasina dhalisay in boqorka ay muddo ku qaadato inuu ka dhaadhiciyo dadka sidii ay u soo dooran lahaayeen dadka iyagu ku metelaya golayaasha kala duwan ee xukuumadda sida laga yaabo in dad badan ay ka warhayaan wadan waliba waxa uu leeyahay wax soo saarka gudihiisa taasi oo ku jaango'an xilli loona yaqaano gross domestic product ama loo soo gaabiyo GDP laakiin wadankan Bhutan waxa uu leeyahay qorshe lagu kordhinayo farxadda loona yaqaano gross national happiness ama GNH taas oo macnaheedu yahay inay dawladdu abuurto jawi suurta gelinaya inay muwaadiniintu farxaan isla markaana xeer lagu cadeeyay xeerkaasi oo sheegaya haddii aanay dawladdu dadka farxad siin karin inaanay jirinba sabab ay u sii jiri kartaa dalkani ayaa tusaale u ah wadamo badan oo ku yaala adduunka kuwaasi oo hogaamiyaasha talada u haya aanay haba yaraatee wax xil iska saarin sidii ay u daryeeli lahaayeen muwaadiniinta dalalkooda Axmed Maxamuud Yuusuf telefishin Kasaab Hargeysa كودني عكتك ولا على العكتة يقدر ملدي ما سنت ولا هاي العلامة shit sidaan iguma soo shigo way khiyaamay sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg Somtel shirkadda dadweynaha